waxaa soo dhamaaday ciyaarihii 18aad ee gobolada Soomaaliya. dadweyne aad u badan ayaa garoonka xilli hore jimcihii sii tagay si ay u helaan meel ay salka la helaan inta aanu buuxsamin garoonka. laakiin waxa dadka qaarkii ay la kulmeen safka oo dheer inta aysan tigidhka qaadan. taageerayaasha ciyaaraha waa ay isku dhex jireen, waxaana koox walba ay u dhawaaqaysay cidda ay taageerada u tahay, iyadoo koox kastana ay aad u jeclaan lahayd inay koobka gacanta ku dhigaan. ciidanka Bombeyda ayaa lagu furay ciyaarta oo hormarayay ciyaartooyda iyo maamulka iyo madaxdii halkaasi joogtay. dhanka suugaanta ayagana kama marnayn, gaar ahaan dhaqanka, iyagoo goobtaasi ay fadhiyeen madax ay ka mid yihiin madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole, konsulka Itoobiya Asmalash, wasiiro iyo madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo guddiga dhaqankaaga hooyana barooyo ku dhinac qaadiin hornimada dhibaaloo dhaxmaray dhiigna wuu baxayo ragii dhaqanka Soomaaliya dibadu aasa dhulkaan oo ka hoos maray markalena ma dhaqaayaan waa inaan dhaqaaqneen anagu dhaxalna howshoodii dhalinyarada ay bulshada waa dhub sugayaan halkaa dhigna kaalintii nagala dhowraayay dhugma laawa khayr ma la jahlina wax isma dhaamaane sportis moudis miray sportis moudis miray dhaxal waa dhaay sportis moudis miray bahdii isboortiga ee waayo ayaa goobta joogay uu ka mid yahay Cabdi Bila Cabdi oo aad u xiiseenayay ciyaarahan. waxaa bilaabatay ciyaartii iyadoo ay safteen kooxihii tartamayay ee finaalka oo kala ahaa Bari iyo Banaadir. markii ciyaarta ay socotay qadar ilaa 5 daqiiqo waxaa Banaadir ay goosha ciyaarta ee gobolka Bari ku hubsatay goolkii u suurageliyay koobka ciyaaraha. taageerayaasha Banaadir aad ay ugu faraxsanaayeen goolkii hore, laakiinse Bari ayaa isla xilligaasi rajo ka qabtay inay badinayaan, balse taas ma noqon oo difaacayaasha dhaxweerarka iyo boortahaba Bari uma suuragelin inay ciyaarta gool dhaliyaan. inkastoo weerar iyo difaacba ay muujinayeen intii ay ciyaaraha socdeen. koobka waxa uu ka muuqanaya garoonka geeskiisa, waxaana koox walba ay indhaha ku haysay koobka. rajadana kooxna kama xumeyn ilaa seerigii dhamaadka ciyaaraha uu dhacay xilligii loogu talagalay. ciyaarta oo ku dhamaatay 1-0 oo koobka uu dhankooda u soo dhacay xulka Banaadir. ciyaarahan waa ciyaarihii 18aad, ciyaarihii 17aad